nolosheenu ku dhisante nolosheenu ku dhisante nolosheenu ku dhisante dinacaygan xejinayaa dalkayga waa nafsaynayaa dinacaygan xejinayaa dalkayga waa nafsaynayaa wadaabataasu inuu dhaxayse wadaabataasu inuu dhaxays ha idhaliilin hadoyla'aanin ha idhaliilin hadoyla'aanin meeshaasi waxa ay 3 dhibcood waqooyi ka xigta xariiqa dunida laba u kala qaybiya waa halka uu ku soo fataho webiga Jubba oo ku yaala dacalka koonfureed ee Soomaaliya dareemada waxa ka sii dambeeya dhir iyo duurjiqa geedahana waxa ka sii dambeeya webiga Jubba oo ka mid ah labada webi ee dalka tuulooyin ayaa ku filiqsan agagaarka Jubba ee carrasanka ah laakiin waxa ay halis galaan kolka webigu soo fataho dadka ku nool agagaarka webigu waxa ay u dhaqmaan sidii ay weligoodba u noolaayeen noloshuna ma dhib yara webiga ayaa haddaba waraabiya dhulkana waxa ku nool dadka dhulkaasi warshado waaweyn oo caynkaasa ma leh xooluhu waxa weeye shayga ugu weyn ee ay dhaqdaan dadka Soomaaliyeed looda saraca iyo dadkuba waxa ay ku nool yihiin biyaha webiga Jubba webiga Jubba waxa uu ku daraa badweynta Hindiya khayraadkiisana lama xisaabin karo Soomaaliyana kama maarmi karto khayraadkaasi 1976 ayaa haddaba la bilaabay mashruuca khayraadkaasi lagaga faa'iideysanayo صبحاي لرها وصبحاي magaalada Muqdisho xukuumadda kacaanku waxa ay ku dadaalaysay 1969 sidii dalku isaga filaan lahaa xagga cunnada waxyaabaha ahamiyadda gaarka ah la saaray haddaba 1974 waxa ka mid ahaa xaggan sonkorta kadib kolkii qiimaha sonkorta uu cirka isku shareeray seeladaha caalamka waxa gudidu haddaba soo gorfaysay in loo baahan yahay iskaashi lala yeesho wadamada aan saaxiibka nahay xagga maaliyadda waxa lala kaashaday wadamada Saudi Arabia iyo Abu Dhabi xagga maamulkana England There are probably a number of reasons, but my own view would be that in the first place you got 1975 shirkadda Buker la yiraahdo ee beeraha ayaa dawladda Soomaalidu qandaraas ku siisay in ay soo diyaariyaan sahankii hore ee meeshaasi mashruuca laga dhisayo. Contractors in their original proposal said that they needed 32 welding sets. Daanta galbeed ee webiga Jubba waxa ay ka dhiseen 8,000 oo qoodi oo sonkor ah. shirkadaha kale ee la yiraahdo Wimpy iyo Molim ayaa waxa wada jir loo siiyay qandaraas ay ku dhisaan iyaguna warshad soo saarta 70,000 oo tan sanadkiiba shirkadda kale ayaa iyadana waxa la siiyay qandaraas ay ku soo dhisaan magaalo loo dhiso shaqaale 4,000 oo qof ah shirkadda Buker waxa kale oo la qaabilsiiyay tababarka shaqaalaha maamulka warshadda waxa la bilaabay haddaba in la calaamadeeyo soodintii mashruuca 1976
khubaradii ugu horraysay waxa ay ahaayeen sahamiyayaal eegaysay meelaha ugu habboon in laga jeexo faraha iyo warshadda iyo magaaladaba meelahaas oo dhan waxaa laga qaaday ciid la tijaabinayay jaadkeeda waayo waxaa lagama maarmaan ay u tahay meesha laga beeri doono qasabka sonkorta waxaa dabeetoo xigtay sahan lagu baadhayay tafaasiisha webiga Juba xagga dhererka xagga xaddiga biyaha iyo dhadhanka biyaha sanadka oo dhan kolkii uu dhammaaday haddaba sahankii hore waxaa la goostay in warshadda iyo magaaladaba laga dhiso agagaarka tuulada la yidhaaho Mareere oo ku taala bartamaha degmada mashruuca Mareere waxaa kaloo ay ahayd meel muhiim u ahayd xagga shaqaalaha sahamiyayaashii hore waxaa soo raacay aqoon-yahanada xagga beeraha oo abuuray qasab shinni u noqda beeraha sonkorta marka dambe 3 bilood haddaba kadib kolkii qandaraaska la saxay ayaa waxaa la gooyay duurkii qasabkii shinnida noqonayana waa la abuuray dhulkii duurka haddaba laga gooyay ayaa laga soo guray xididadii oo dabeeta la gubay kolkaasaa dhulkii la qoday oo la simay oo loo habeeyey qaabkii beeraha qasabka sonkortu wuxuu u baxaa sida naqa ama tigaada wuxuu u baahan yahay biyo badan iyo hawo diiran oo u dhaxaysa 20 ilaa 40 darajo haddaba biyo badan iyo hawo diiran waxaa loo daayay webiga Juba kolka la beerayo qasabka waxaa loo googooyaa xidhmo gaaban oo geed baa ka soo baxa kala goyska xubnahaasi u dhaxeeya kolka sanad walba la gooyo waxa ay soo biqishaa haddaba 4 ilaa 5 goor inta aan loo baahan mid kale oo dib loo beero dawladdu waxay ugu tala gashay in iliilado ama faro lagu waraabiyo mashruuca durbadiiba waxaa la sii qorsheeyey farihii waraabin lahaa iyo biyashubyadii iyada oo la joogo sahankii hore oo aan la gaadhin shinniyeyntii beertaba sahanno kale oo dheeraada ayaa lagu sameeyey hagaajin iyo isbeddello lagu sii dhimayey kharashka Use this natural feature and make KND1 go down this. I see, but at least we have 3 or 4 kilometers of free drive. waxaa markaasi la filayay in sonkorta la soo saaro bartamaha sanadka 1980 3 bilood kadib kolkii la saxay qandaraaskii weynaa ayaa waxaa la abuuray oo baxaysay xundurtii mashruuca sanadkii hore bartamihiisiiba waxaa la bilaabay qasab goyntii beerihii hore dabeeto waxaa la ku qiyaasay miisaanka qasabka kala jaadka ah ee go'ayay si loo garto nooca ugu habboon degmadaasi xarunta sharikadda beeraha ee Buukar ku leedahay magaalada London waxaa ka soconaya haddaba qorshaynta meelaha lagu rakibayo makiinadaha biyaha qaybinaya ee beeraha gaarsiinaya iyadoo haddaba wax toosa oo isgaarsiina aan lala lahayn meesha warshada laga dhisayo ayaa warka ka imanaya uu yaraa dabeeto waxaa badatay booqashadii lagu aadayay meesha la yidhaaho Mareere si loo soo ogaado xaqiiqada iyo mashruucu sida uu socdo dhibaatooyinka yarar mooyee mashruucu sidii loogu talagalay ayuu u soconayay $1,000 per hectare. We expect this to be in the range of $1,200 to $1,300 per hectare. wax kasta sidii la filayay ayay u dhaceen xitaa roobkii wuxuu da'ay xilligii la filayay gugii hore ee mashruucu socday roobku ma kala qaadin waxaase ka sii daraa Noofambar 15 ayuu haddaba webigu soo fatahay oo uu xidhka jabiyey